أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan muddo dheer baynu kala maqnayn oo aanan soo gelin youtube-ka. waxa igu kalifay maanta inaan soo galo waxa weeyaan dowladaha ku dul ciyaaraya Soomaaliya oo la isugu keenay Masar iyo Ethiopia. awal bayadu ay 100 dowladood joogeen waa maanta wax loo fasaxay laba dowladood inay ku hirdamaan ku dagaalamaan ummadda Soomaaliyeed dusheeda. iyaguna waxay ku mashquulsan yihiin qabyaalada iyo qurun iyaga isku jeeda oo reer baa la isku dilaya meel walba. Soomaaliya oo dhan dagaal ba ka socda meel kasta afarta koone. waxa weeyaan in lagu maqan yahay isku maqane lagu maqan yahay weeyaan. waa isku maqane lagu maqan yahay. inta iyagu isku maqan yihiin baa lagu maqan yahay. marka ilaahay maanta wuxuu madax uga dhigay nin wuxuu khariyo mooyay wuxuu hagaajiyo aan la arkin. maanta wuxuu fasaxay wadankii in laba dowladood ku dagaalamaan. Masar in badan bay dagaal kula jirtay Ethiopia, wayna jecelayd inay dagaal ku qaado Ethiopia si ay xaqeeda usoo dhacsato. laakiin waxay u turaysay wadankeeda iyo dadkeeda in aan lagu dul dagaalamin. maanta waxay heshay wadan cidlo ah aan wax ka mas-uuli jirin. marka dee waa in sidii la doono laga yeelo. maanta Soomaaliya dusheeda lagu dagaalamaa. carabi haddii wax tarayso iyada wax isu tari lahayd. falastiin waxay xugu qaban waayeen Masar. falastiin iyo Masar isku dhegsan yihiin. hadday cid wanaag hayaan waxu qabanayaan falastiin bay qaban lahayd. marka sidaa la ajigeed waxay u yimaadeen waddanka in dad aan dana laga lahayn baa lagu dul dagaalamaya. iyagoo xaqoodii dantooda ay socdaan, laakiin Soomaali waa dagaal lagu dul dagaalamaya, dagaal ka dul dhacaya. inta iyagu isu leeyihiin qabiil wax dhan bay ahayd. laba dowladood waaweyn baa maanta ay noqotay inay ku dul dagaalamaan oo loo fasaxo waddanka. arrinta iyada wallahi aad iyo aad baan naga xunnahay. waxayna muuqataa wadankii Soomaaliyeed inuu noqday baylaha. wixii doonaba soo galayaan, wixii doonaan ku dagaalamayaan oo dhinacii u socday dhinacii ka jeedatoona la garanay. marka waa ayaan daraan leenahay, waa ayaan daro aad iyo aad baan naga xunnahay. Soomaalida shicibka Soomaaliyeed waxaanu leenahay kaca oo iska qabta dadka cadowga idin gacagelinaya. waxaan maqlayaa ummad Soomaaliyeed, dad Soomaaliyeed oo leh Ethiopia na xigta annaga Masar waa walaalahayo, Masar baa walaalahayo, Masar waa dowlad Carabeed, Masar waa dowlad Carabeed waa walaalahayo. marna wax yaraan annagu Carab ma nihin. walaalihi waxaas ma jiraan. wax walaala idin yihiin ma jirto. caalamku waa qoslaya. caalamku ummadda ilaahay waa yaaban tahay. caalamku waa yaaban yahay. waddan dalbada in dushiisa lagu dagaalamo. masarna maslaxadeeda waxaan hay u socotaa ma jirto. Ethiopia annaga kana xigta, annaga kana xiga. midna kuma dooniyo, midna kuma xigo. waxaa tahay waa lagu arkaa. ummad xoolaa waxa aan kala ogeynaa tiina jaahil. inta wax garanaysan aan la maqlayno. marka la arko inta wax wanaag wadana waa laga hor imanaya. inta wanaag wada wax fahmaysa. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha tashataan leeyahay. wadankooda ummadda Soomaaliyeed wadankeeda ha tashato. wax madax la yiraahdo wax meesha ka jira toona ma jirto. madaxnimadu ma noocaasa madaxnimo la yiraahdo. dad cadow idin gacan gelinaya habeenii maalin wadanka dagaal ka dhacaya afarta koone. wax soo galay wax baxay midna mar lagama hayo. hawadaas jirtay in xogaa lagu control jiray. hawadan wax ma maqlayo wadamo kale lagu wareejinaya. waxaas waa khiyaano wadan weeyaan. maxay ahayd fool xumo wadan xumaan iyo ku soo socota shacabka u tumaya. hadda wax kala garanaysaan dadka aleedii meesha hoggaan yihiin ka qabta ummadda ilaahay islaameed ka qabta. hawadaas un baa wax kale wax ma jiraan. marka waxa sameeyay kuwa ku raacsanayba aakhira la tagi doonta xisaab aakhira ay xisaabin doona.
aakhiro baa laydin weydiin doonaa dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed u geysanaysaan iyo magacdilka iyo sumadilka ummadda soomaaliyeed foolxumada daciifnimada hoos u dhigidda mar baa laydinka xisaabtami doonaa inta xumaanta isku raacsanay waa idin salaamaya ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu